waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imayl kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka qodobadan kusoo qaadanayno waxaa ka mid a war degdeg ah oo haddana soo gaadhay ciidanka Puntland oo weerar xoogan kusoo qaadaya caawa waa beriga ciidanka qaranka Somaliland iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda deegaano dhowr ah iyo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo kusoo biiray dagaalka Laascaanood hub iyo ciidan gurmada markaasi kusoo guraya gobolka Sool iyo waxa kale oo kusoo qaadanaynaa barnaamijka ciidanka qaranka Somaliland oo gabi ahaanba afarta dhinac ka jooga oo go'doon galiyay kooxaha SSC la baxay iyo ciidamada federaalka Itoobiya oo mar kale qabtay gaari waaraad ah oo hub iyo rasaas ka buuxdo qodobada iyo qodobo kale caalami ah ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka kusoo dhawaada وهاك أنكو بلونا برنامج war degdeg ah oo haddana soo gaadhay oo ay saacadu ku taagan tahay labadii habeenimo iyo badh marka ama 2 daqiiqo ayaa waxa warkaas uu sheegaya in lagu arkayo deegaano badan oo ku yaala markaasi dhinaca Puntland dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo weerar xoogan oo markaasi ku soo socda ciidamada qaranka Somaliland ila sirdoon ayaa hadda shaaca ka qaaday in ciidanka markaasi Puntland ay isku soo tababaraysanayaan oo ay ku soo ruqaansadeen ciidamada Somaliland weerar uu ku soo socdo deegaanada ay ka mid yihiin buuro wadal god qaboobe faliidyaale doodida goldogob iyo garoowe ayaa la sheegayaa in markaa boqolaal tiknika oo ciidamada Puntland ah ayaa halkaasi ay ka soo kici timeen kuna soo wajahan yihiin dhinaca xuduudda Puntland iyo Somaliland oo dhaxaysa waxaana hadda la sheegayaa in uu sidoo oo kale dagaalka ku soo biiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasi oo markaa bedelay dhinacii Mustafa Cagjar markii la baloogareeyay ama la xiray taageeradii uu Mustafa Cagjar siin jiray kooxaha la baxay SSC ee dagaalka kula jira ciidamada qaranka Somaliland marka dawladda federaalka Itoobiya ay xidhay xadka u dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya gaar ahaan Buuhoodle halkaasi oo hub iyo rasaas badan markaasi iyo gurmad uu ka soo gali jiray kooxaha SSC-da oo Mustafa Cagjar u keeni jiray kaasi oo markaa waaraadkii ugu dambeeyayba maanta la xidhay oo markaasi la qabtay dhowr gawaari oo markaa hub iyo rasaas sida ayaa halkaasi lagu qabtay haddaba waxa hadda wararku ay sheegayaan in ay shaarkii daaroodnimada wali shaqeynaya moogta kolba kaar bay la soo baxayaan kaarkii Mustafa Cagjar markii uu shaqeyn waayay baa la yiri ay markaasi kooxaan hubanta SSC waxay u wareegeen imika dhinaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaana hadda la sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyay Xamse Cabdi Barre ay iskugu tageen daarood oo dhan madaxdoodii hore iyo moogta madaxda hadda uu aragmisa ee ku kala nool Kenya Soomaaliya Itoobiya iyo waliba Somaliland waxay yiraahdeen ka kacay maanta aduba madaxaba lagu yidho moogtahay hub iyo rasaas ba keeni kara cidna aanay ku qaban karin oo cid moogtahay awood ku qaban kartaa ma jirto sidaa darteed hub iyo rasaas waa inaad keentaa bay ku yiraahdeen oo lagu khasbay waxaa la sheegayaa in ciidan badan iyo hub iyo rasaasba uu markaasi soo bixiyay ra'iisul wasaare Xamse waxaana hadda ay soo gaadheen garoowe ayaa halkaasi lagu soo moogtahay tabaabushaystay waxaana hadda la soo qaadaya weerar xoogan oo markaasi ku soo socda ciidamada qaranka Somaliland haddaba waxa uga digaynaa markaasi in ay feejignaadaan ciidamada qaranku oo ay ogaadaan weerarkaasi inuu ku soo socdo ila sirdoon oo warbaahintu ay heshay ayaa xaqiijinaya in ay xilligoogii ay weerarada soo qali jireen waa beriga 5:00 subaxnimo la doonayo dagaal xoogan in lagu waabaristo oo ka dhici doona dhinaca Tukaraq iyo markaasi dhinaca Laascaanood isla habeenimada ilaa caawa fiidkii ay la sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadaan sida oo kalena ay doonayaan dhabarjabin inay ku sameeyaan ciidamada qaranka Tukaraq marka waa in loo feejignaadaa in dhinac kasta oo markaa suurtagal ah la yiri oo ay ka soo gali karaan kooxahaasi waxa hadda ay sheegeen ilaa sirdoonku in sida ugu dhaqsaha badan la ciidamada inuu feejignaadaan ay tahay oo ciidamadaasi oo aad u hubaysan ay ku soo fool leeyihiin
dhinaca kale waxaa dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay labadii maalmood ugu dambeysay la sheegaya in dhimashada iyo dhaawacu ay tirabeel tahay in ka badan 160 askari oo kooxaha SSC ayaa la sheegay dagaalkaasi in lagu dilay 40 kalena lagu dhaawacay jaamac Garaacali isna maanta hadlayay ayaa sheegay 150 in laga dilay qof isagu shicib buu ka dhigay laakiin waa askar dagaalamaysa meesha shicib jooga bari hore ka qaxeeno waa kuwa meelaha hay'aduhu tirakoobka ka wadaan ee xuduudaha Itoobiya ka gudbay ee dhinaca Garowe ku dayacan shicib meesha ma joogay waxa weeyaan 150 askari uu ka dhigay boogta isaguna 150 shiciba si kasta ha ahaatee dagaalku hadda galka ayaa seefta la iskala baxay dhinaca kale waxa ay xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay warbaahinteedu in afarta dhinacba ay ka taagan yihiin ciidamada qaranku magaalada Laascaanood warbaahinta dawladda ayaa xaqiijisay in ciidanka qaranku gacanta ku hayaan afarta koorne ee magaalada Laascaanood inkasta oo markaasi oo la sheegayo in ay weli kooxaha SSC-du ku dhex jiraan qayb ka mid ah magaalada Laascaanood oo halkaasi ay dhufeysyo ka dhigteen masaajidadii iyo markaasi dhaqaatiirtii oo ay halka ka soo tooganayaan ciidanka qaranka waxaa la sheegayaa sidoo kale in habeenkii boogtahay la soo galaan hub iyo ciidan qarsoodi ah oo markaasi ay kooxahaasi halka dhufeyska kaga jira loo keeno inkasta oo la sheegay hub badan moogtay masaajidada inay gorni horeba sii gashadeen haddana rasaas badan iyo moogtay gurmad badan ayaa la sheegay habeenkii in dhuumasho lagu soo geliyo magaalada Laascaanood dhinaca kale waxay wararku sheegayaan dhinaca Puntland oo hadda caaraysan oo laga dilay 4 sarkaal oo ciidamada Puntland ah kuwa darajada sare haysta ayaa lagu dilay dagaalkii dhacay markaasi maalinimadii shalay ilaa daraad dhacay waxaana hadda la sheegay Puntland inaanu fadhiyo oolin inkastoo madaxweynaha Puntland Danny uu sheegay dagaalka inaanu ku jirin in badanna uu ka meermeeray oo uu diiday inuu dagaal la galo ciidamada qaranka Soomaaliland laakiinse kooxaha ku adeegsada magaca shaarka daarood ku shaqeysta ayaa daarooda ka wada moogtahay ilaa Kenya ilaa Itoobiya ilaa iyo Soomaaliya ilaa Somaliland inta baraha bulshada ay xiriir sameynayaan waliba waxa abaabulka wada kooxaha qurbaha jooga oo hadda rag badan lagu daba jiro oo lagu qaadi doono kiis ah dagaal oognimo oo moogtahay codad badan laga hayo iyaga oo xitaa la soo xiriiraya ciidamada u dhashay beesha dhulbaxantay ee laakiin ka tirsan ciidanka qaranka Somaliland ay la soo hadlaan oo moogtahay codad badan laga hayo iyaga la soo hadlay oo leeyihiin kasoo go'so Somaliland dagaal ku soo biir adoo si kasta haatan marka shaarka daaroodnimada ku shaqeysanaya oo hadda fadhiidimo yaalay tollaydu ay ku shaqeynayaan ayaa waxaa la sheegay abaabulkooga in aakhirkii Siciid Danny ay ku qalciyeen inuu ka soo baxo moogtay godmulaca uu ku jiro iyo moogtay dhuumashada uu dhabarku muuqdo dhinaca marka la eego hubkiisii ciidankiisii waa kuwan maalintii dowladda dagaal ku soo qaaday ciidamada qaranka ee dhinaca Tukaraq dagaal ka dhacay sutida loo qabtay kadibna ilaa iyo god qaboobay moogtay eryaday dib haddana isku soo abaabuleen waxaa sidoo kale sheegaya kooxaha xagjirka ah in iyaguna oo marka horeba waxa la yiri beesha daarood baa sameysay lagu eedeeyaa moogti iyaguna hadda la safan baa la yiri marka bisad iyo jiir awal seeriyan jira ayaa hadda isku meel ka dagaalamaya oo dhamaantood cadowga kaliyata ee ay leeyihiin ee ay sheegeen la dagaalamayaan uu yahay baa la yiri in ay Soomaaliland ciidankooda qaranka la dagaalamaan ayaa ka go'an markaas Siciid Danny iyo moogtahay ilaa iyo Jidwaaq ilaa iyo moogtahay dhinaca kale xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya meel alaale meeshii hayb daarood joogto ayaa hub iyo ciidan laga soo ururiyay sidoo kale hub badan oo dibadda laga keenay waa la sheegaya waxa la isku soo urursay leeyahay tollaya daarood waxaana hadda la sheegay weerar xooggan oo iyagu u bixiyeen weerarkii kaba dambaystaha inuu hadda ku soo wajahay ciidamada qaranka kaasi oo saacadaha soo socda dagaal xooggan inuu dhaco laga yaabo